madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xadhiga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta agoomaha gabdhaha taasoo laga hirgeliyay bariga magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirro ka socday xukuumadda marwada madaxweynaha maayirka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiin marti sharaf iyo waliba xubno ka socday dalka Kuwait madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo halkaasi hadal kooban ka jeediyay waxa uu ammaan badan dusha u saaray dawladda Kuwait wuxuuna ku amaanay kaalinta ballaaran ee ay ka geysato xarumaha agoomaha ee ku deedsan amaba ku yaala guud ahaan bagayga Soomaaliland madaxweyne Silaanyo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah waxay la tahay halka kan aniga hadal aad u dheer ka jeedin maayo waxaan xafladda furitaanka dhismaha xarunta agoomaha qaybta hablaha waxaan maxad ballaarin u celinayaa بيت الزكاة يدولة الكويت يفرسي مشروع كان مشروع هو مشروع قيمة وين يقاوي نوقف فرديا آد تلك يدد كبا قيمة وين نوقف فرديا ويه مركا واحد جعلنا هالكن آد وقوم هاد عليه دولة الكويت مشروع كان إنجا بالجلسي نوصل ميسي آد بعدكم بهذا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته maaha markii ugu horeysay ee dawladda Kuwait ay ka hirgeliso Soomaaliland dhismayaal noocan oo kala ah taas oo lagu xanaaneeyo caruurta agoomaha ah Khadar Kaafi Space Channel Hargeysa